hadda ka hor dalkeena Soomaaliya kama jirin ogaanshaha saxda ah ee xaaladda autism-ka oo ah xaalad ay ilmuhu ku dhashaan lana ogaado muddo yar kadib korinshaha cunuga. Xaaladdan autism-ka ma ahan cudur ay dhaqaatiirtu daweeyaan ee waa xaalad u baahan cilmi nafsi ahaan in loola tacaalo, isla markaana ay carruurta qaba xaaladani helaan xanaaneyn ka duwan midda ay helaan carruurta ka badqabta xaaladda autism-ka. Waalidiinta Soomaaliyeed oo aan hadda ka hor ku baraarugsanayn xaaladda autism-ka ayaa ubadkooda kula daali jiray isbitaallo iyo xarumo caafimaad. Fahamka xaaladdan oo yareed awgeed waxa ay waalidiinta qaar xalka ka raadin jireen dalka dibaddiisa, iyadoona ugu dambeyn lagu wargelin jiray in xaaladani aysan dhakhtar u baahnayn balse u baahan tahay la tacaalid gaar ah. Waxaa intaasi u sii dheeraa waalidiinta qaarkood maba aysan isku dayeyn in ay la tacaalaan oo waxay u arkayeen xaalad aan wax ka qabad lahayn, waxaana halkaasi ku lumi jiray mustaqbalka cunuga oo aan helin daryeelkii uu u baahnaa. Nasiib wanaag 2016 waxaa Muqdisho laga furay xarunta xanaanada daryeelka carruurta ee Mustaqbal oo 2 farac ku leh magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan iyo xaafadda Daarusalaam ee dowladka Muqdisho. Halkani waa xanaanada carruurta ee Mustaqbal, waa goob lagu xanaaneeyo carruurta baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan autism-ka. Sheekadeenu maanta waxay la xiriirtaa xaruntani qaabka ay u shaqeyso, carruurta lagu baxnaaniyo iyo si guud xanaanadani waxa ay qabato. Dictoresa Raxma Cabduqaadir Maxamed oo ah maamulka xarunta Mustaqbal ayaa ugu horeyn aan weydiiyay xaruntan iyo waxqabadkeeda. xarunta baahiyaha gaarka ee Mustaqbal waxay gargaraysaa carruurta qaba baahiyaha gaarka qaybahooda kala duwan. inta badan waxaan qabanaa xaaladaha kuwa oo teachable trainable-ka ah oo la tababari karo waxna la bari karo. cunuga marka ugu horeyso oo nala keeno waa qiimeynaa xaaladiisii, noocay tahay ayaan aragnaa, waxaan ku caawi karna iyo jadwal ayaa loo dejiyaa. kadib marka la aqbalo, ilmaha baahiyaha gaarka way kala duwan yihiin, dhowr nooc, dhowr xaaladood ay leeyihiin. waxaa inta badan aan aragna aan qabano waxaa kamid ah xaaladda la dhaho autism-ka ilmaha wuxuu ka saameeyaa xiriirka oo bulshada, dhanka xiriirka uu saameynaa, dhanka hadalka ayuu saameynaa, dhanka la dhaqanka, dhanka eye contact, behavior-ka, waxyaabo badan oo cunuga ka saameynaa. marka 80% intaan qabno ilmahaas ka mid ah. waxaa noogu soo xigo Down syndrome xaaladda la dhaho. xaaladaas iyadana way ku badan tahay Soomaalida inta badan saas uma yaqaanaan. sidoo kale waxyaabaha ilmaha ADHD la dhaho ama ilmaha fudud oo aan fadhiisi karin, behavior therapy iyo waxyaabo ay u baahan yihiin in lagu tababaro. qaar medical oo daaweyn isticmaala jiro. sidoo kale cerebral palsy ku lahaa jiro, ilmaha oo kafku ku soo daahay oo physiotherapy soo heleen oo meel fiican maraayo oo wax la bari karo, la tababari karo. xaaladahaas iyana waa qabanaa. waxaa jira ilmo la dhaho iyana learning disability, waxbarashada ku adag. marka iskuul walba saa u geysid yani cunuga kale oo da'diisa ah ma la jaan qaadi karo. marka waxay keenaysaa mar walba inuu mental ahaan oo cunugan ka dambeeyo oo u baahan yahay care gaar ah iyo waxbarasho oo special ah oo u baahan yahay. waxaa jira kuwa speech delay ah, hadalka ka soo daahay, iyana waa qabanaa. way badan yihiin xaaladahan qabano. Hooyo Luul waxay ka mid tahay waalidiinta carruurtooda Mustaqbal u keenay daryeel, waxayna sharaxaysaa waxa ay kala kulantay. waayahay waxaan hadda aan la joogaa hooyo Luul oo ka mid ah waalidiinta xanaanadan Mustaqbal ubadkooda u keensaday daryeel iyo in lagu xanaaneeyo. ugu horeyn Maama Luul soo dhawow. ما شاء الله بسم الله waxaan keenay muddo gabadhaydu dhigataa 1 sano iyo 1 bil ah. alxamdulillaah muddadii aan keenay maanta farq weyn u dhaxeeyo. daryeel iyo waxbarasho iyo wax walba meesha ku haysanaa. ما شاء الله iyo tixgelin gooniya gabadha waxa jooga aad u miisaan badan. annaga marka gabadhayda wax badan aan ka maqan, iyadoo amarka qaadanayso, iyadoo hay'ad marka la waaqdo ku celinayso fal wax badan oo faa'iido aan ku haysanaa annaga. markii hore say ahayd marka hore waan soo qabanayna kaliya, hatta markii loo dhawaaqay iimaanay waa soo qabanay, waa fariisinay, waa soo qabanay tunjiya fariisinay. hadda may way ku iimaanay, waxay ku sheeganay markay tunji hayso, waxay ku sheeganay biyo ay cabto markay hayso, markay u baahan tahay wax walba ay ku sheeganay. hadda wax badan oo isbedel amarka hatta inay qaadato hadda way meeshaan ka barantay oo marka la dhaho ka joog ay ka istaagto waxaas hayay marka tira ay ka cabsooto meeshaan ka barantay. marka hore xanuunkan autism-ka ku ogeeyay may anaga ma ku ogeyn, Muqdisho aan ku dhalay
ma aqoonin anaga Soomaali ma taqaan cudurkan Soomaa ma aqoonin hatta waliba anaga waxaan leeyahay autism ma dhaqaatiirtan way aqoon marayna laakiin wax badan hadeer markii aan Hindiyan geeyay ka soo qaadanay daawooyin badan waxay dheen gabadhan waxay u baahan tahay daryeel sidaan camal ah ma ana aqoon wadankeenu ku yaal alxamdulillah muddo ka bacdi gadaal danbaa ku ogaana anaga waan ogaana waan keenay ma sha Allah ilmaha lagu xanaaneeyo xanaanada mustaqbal waxa ay maraan dhowr marxaladood sida ay mar labaad sharaxayso Dr. Raxma waxaan kasoo bilaabaynaa marxalada oo ka hortag early intervention wuu ka gudbayaa cunuga diyaarin oo galaa iyo rehabilitation oo galaa kadib academia loo gudbinayaa marka fasalo academia u diyaarinay iskuul camal oo ciyaal oo maasha Allah marxaladaha aad u horumaray ku jiro oo akhrinayo qoraayo amarka qaadanayo oo behaviorkood aad u wanaagsan yahay ayaa jiro Ustaad Faadimo Cali Nuur oo ku takhasustay cilmi nafsiga waxa ay ka mid tahay macallimiinta xanaanada mustaqbal waxaana weydiiyay sida ay ilmaha ula tacaalaan soo dhow Ustaad Faadimo waxa nooga warbixisaa wiilkan yar waxa uu qabanayo iyo shaqadiisa waa mahadsantahay barnaamijkan waa barnaamijta xarunta ka qabano ilmaha maxaa lagu baraa xirfadaha cunug kastana maxaa la fiiriyaa mawhibada uu leeyahay waxyaalaha uu jecel yahay kadib hadhow mujtamac markii loo saaro uu u noqdo qof oo يعني صوصار له نفتيس أنفعه بولشديس أنفعه والدينتيسنا أنفعه oo markii laga soo tago waxbarashadiisii in xirfado qofkii meesha lagu aqoon ها إن loo yeelo لأنه ilmaha maxay u baahan yihiin tababarid oo gaar ah marka ma noqonaysa in mujtamaca lagu dhex daro oo la dhaho orod soo shaqeyso koob in lagu tababaro waaye qolka meesha maxaa la sasino oo si individual ah inta ilmaha loogu sameeyaa dhaqan toosina loogu sameeyaa yani fasalka dhexdiisa ilmaha markay badan yihiin ay isdhex joogaan way adag tahay in dhaqan toosin loo sameeyo marka si individual ah dhaqan toosinta loogu sameeynaya wixii oo hadal barid ah markaas speech therapy-ga laga saacidayaa mar labaad hooyo Luul ayaa fariinta la bixina u dirtay waalidiinta guryaha ku haya caruurta la nool xaaladda autism-ka waxaa jira waalidiin badan oo la dhiban xanuunkan ubadkoodu sidii aad bilowga ugu wareersaneedeen ugu wareersan maxaad ugu baaqi lahayd adigoo fursadani uga faa'iideysanay wallahi ani waalidiin badan hatta taa waa arkaa guryaha ku haya ilmo sidaan oo kale ah waxaan dhahaa ma anfacayd cunugan sidaan marka waxaan leeyahay kulli hooyooyinka Soomaaliyeed culayska badan ayagu saaran yahay hooyay cunugaaga oo dhib qaba maanta intaan nooshaa meelaha la fadhin meeshan dadaal fiican ay leedahay wax badan aan kaga faa'iidnay faa'iidadan helno kale ta Ilaahay ku siin doona insha Allah sanadkii 2023 cilmi baaris ay sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa daabacday in caruurta adduunka 1% uu la kulmo xaaladan autism-ka. Axmed Raas Maxamed Faarax, 5 Somali TV, Muqdisho.